أولا marka ugu horeysa waxa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo suurta galiyay guud ahaanteen inaan maanta halkan isugu nimaado waxa kale oo mahad iskale dhamaan in Allah iyo inta noo suurta galisay inaan halkan maanta isugu nimaado oo ugu horeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishiisa saraakiil xigeenadiisa alifleeday dablidiisa qiimaha badan ee halkan inaan soo gaarno oo suurta galisay waxa sidaas oo kale aydan aan u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee u istaaga ayagana in ciidamadooda qaranka iyo qarankooda ay garab istaagaan oo runtii wixii laga raba kaliya ka gudbay oo go'aansaday inay ciidamadooda garab istaagaan qorigooda qaataan kana garab dagaalamaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ayagana madaxda qaranka oo xaqiiqatanka in cadawga qawaarijta ah dhul baaxadiisu aad u weyneeday oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal oo ka socday in cadawga laga soo saaro hormuud noogu ahaa inta kadib meeshaan hadda aan maanta ku sugannahay waa degmada Aadiyabaal degmadan Aadiyabaal waa degmo dabcan ku taala cirifka waqooyi gobolka Shabeellaha dhexe sidoo kalena ku taala cirifka bari ugu dambeeya gobolka Hiiraan sidoo kalena cirifka Koonfureed ku taala gobolka Galgaduud oo centraalkii isku xirkii gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe ah ilaahay baa mahad iskale in maanta halkan soo gaarno waqti kooban waliba oo laga soo saaray nimankii argagixisada ahay oo halkan ka talinayay muddada 15 sano heeday ku baneestay dhiigga ummadda Soomaaliyeed ku baneestay naftooda iyo maalkooda ognahayna dhibaatooyinka aadka ugu racan ee ay halkan ku haayeen runtii farxadeena lama soo koobi karo kelimada aan afka ka dhahna kuma soo koobi karno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidamada oo sabab u ahaa guulahan la gaaray inay maanta ay halkan soo gaaraan geedkan aan soo hoos fadhiisano waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin runtii taas waa tii aan u dhaaranay waa tii aan dariiska u gashanay waa wixii aan go'aansanay inaan dhididkeena iyo dhiiggeena u bixino qarankeena badbaadino qarankeena ilaalino sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee nimanka argagixisada ah oo ay muddo dheer ay ragaadiyeen oo dhibaatada ay ku hayeen waxaad arkaysaan halkan hadda waa degmo waa waliba degmo qadiimi haddana waxaad aragteen nolosha ka jirta iyo nooca ay u taal waxaan dhihi karnaa wax aan ku tilmaami karno waa ogeyn awalna waa ogeyn dhamaan deegaanada Soomaaliyeed caynkaas way deegaanka kale ka roon uma jiro waxay go'doomiyeen ummadii waxay baabi'iyeen noloshii dadka bini'aadmiga ay lahaayeen waxay boobeen hantidii iyo xoolihii ay lahaayeen wax u dhiman oo ay ku samay lahaayeen ma garanayo marka inaad ka dul qaadaan oo dadka Soomaaliyeed deegaanada aad soo marteen iyo deegaankan maanta aan joognahay xurka yihiin nimanka argagixisada lagana yaabin dib inay ugu soo laabtaan aad iyo aad ayay farxad gaar ah inoogu tahay runtii tan uma ahan dhamaadka hawsheeni waxaan noo hareeyaa wax yar ayaa noo haray wax yarka oo noo haran insha Allah ta'ala galabta waxaan ku dardaarmaynaa oo ku ballamaynaa waxaas yarka inaan dhameystirno hooyo iyo aabe iyo wiil iyo gabar Soomaaliyeed aan ka soo dul qaadnay maanta waxay dareemayaan nafis ayay dareemayaan si xurriyada ay guryo hore ku joogan si xurriyada ay ku nool yihiin ayagoon cid ka baqayn hooyo iyo wiil iyo gabar Soomaaliyeed ayay wali dul saaran yihiin aragtidii guracneed iyo ficiladii guracnay ayay wali la dul saaran yihiin naftoodii iyo maalkoodii ayay wali waxay ku hayaan caburin iyo boob dhiigoodii ayay wali banaysanayaan sharafkoodii iyo karaamadoodii ayay wali ku xidgudbayaan wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee ay wali dul saaran yihiin inta ay dul saaran yihiin waxa waaye wali waxaan dareemaynaa xanuunkii aan dareemayna markaan soo bilaabayna ama xanuunkii markii horeba aan u go'aansanay inaan ku biirno ciidamada qaranka darees ka gashanno si aan u xurayno dalkeena iyo dadkeena waxaan rabaa marka saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qiimaha badan ee halkan fadhisa iyo alifleyda iyo dableyda nagu hareeraysan saaxiibadeena oo halkan soo gaarsiiyay haday ayaga ahaleen aan kaana soo gaari lahayn hooyo Soomaaliyeed wali inta ay ku jirto gacanta nimanka hurda nooma taal fadhina nooma yaal meeshaan ilaahay idankiis kuma ka doono horan u socod doona meelaha ay jiraan aan ka raadi doona waa uga daba tagi doona waxaan xaqiijin doona maalin nasashadu xalaal noo tahay inaan nasanno maalinta nasashadu xalaasha noo tahay waa maalinta aanan kaanan wax walwala ka qabin hooyo Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed iyo gabar iyo aabe Soomaaliyeed nimanka argagixisada ah cariiri dambo iyo caburin dambo in aanay ku hayn aad iyo aad u mahadsantihiin adduunka wax lagu nisbay kara nimankan malaha wax lagu nisbay kara nimankan malaha waxay sheeganayaan diinta islaamka laakiin dhinaca kale nasiib daro waa cadawga diinta islaamka waa cadow loo soo diray dabargoynta diinta islaamka deegaanadan aan soo marnay waxyaabaha caanka ay ku ahaayeen ee labadaan gobol waxay ahayd diinta tuulooyinka
iyo degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn iska daa duurka ayaa waxaa ku aal jiray dugsiyo quraan oo geedaha ka hoos oodan meeshaan ka soo bilowna ilaa meesha maanta aan marayno ilaahay idinku dhaariyo dugsi quraan meel ku yaalla ma aragteen hal dugsi quraan oo meel ku yaalla indhihiinnu ma soo qabteen xagay aadeen dadkan xataa kuma dhiga jirin buugaag iyo warqada xataa quraanka kuma aysan dhiga jirin looxay ku dhiga jireen loox dad ahlu diin oo ahlu kitaaba oo quraanku horta oo qasab u yahay ahaayeen waqtiga igu yar waa soo kooba waxaan rabnaa kuwaan haddayna dilaan ahlu jinnana haddaan dilnana dee jannada yaa lagu tega waddo kaloo noo furano ma jirto waxaan xusaystaa waagii aan meel dhexe soo wadnaa ninaa hadlay wuxuu nimayow shabaab qof looga dacwoodo ma leh hal qofoo looga dacwoodo ma leh haddaad dishana qofka uga qabsanaysa ma leh marka hadduu ku dhibaateeyo qof looga dacwoodo haddawnaba lahayn haddaan dilnana aan nagula qabsanayn horta inaan dilno maxaa noo diiday ma jirto waa intaas marka aad iyo aad u mahadsantihiin sharaf iyo karaama leedihiin